السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada saaxiibada qiimaha badan oo channelka bandhig muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay falal xatooyo oo fashilmay sida caadiga ah inaad hurdo waa mamnuuc xilliga shaqada Dion Davis wuxuu u soo dhacay guri cidla ah wuxuuna ka xaday boorso uu dahab ka buuxo intii uu goobta ka baxsan lahaa waxa uu galay qolka jiifka ah wuuna ku yara gamay maba uusan soo toosan ilaa uu baraarugay booliska oo kortaagan tuugii Facebook isticmaalay Negweg wuxuu wax ka xaday guri ay dadkiisu maqan yihiin inta uu ku guda jiray hawshiisa xaditaanka ahayd ayuu isticmaalay kombiyuutar goobta yaalay wuxuuna furtay ciwaankiisa kadibna wuu iloobay inuu iska xiro warbixintiisa ayaa isla markiiba goobta laga helay waana la soo xiray Ryan Bonnert iyo saaxiibkiis waxay soo dhaceen guri ku yaala gobolka Oregon waxayna halkaas ka xadeen dahab qiimihiisu gaarayo $10,000 waxa xusid mudan in Ryan inta uu ku guda jiray hawshiisa uu dareemay haraad wuxuuna furtay talaajada wuxuuna kala baxay cabitaan markii uu cabayna halkeeda ayuu kaga dhaqaaqay booliska ayaa baaritaan ku sameeyay cabitaanka soo haray taasoo ugu dambeyn keentay in la aqoonsado bastoolada iyo boorsada ama shandada maalin maalmaha kamida waxa bangi ku yaala magaalada London u soo dhacay nin tuug ah wuxuuna gacanta ku watay bastoolad sidoo kale gacanta kalena wuxuu ku watay boorso ama shandad uu rabay inuu ku gurto lacagta markii uu u soo galay gudaha ayuu kaashiyerka ku amray inuu shandada ugu soo rido lacagta wuxuuna rabay inuu shandada u tuuro laakiin wuu isqalday oo meeshuu ka tuuri lahaa boorsada ama shandada wuxuu tuuray bastooladii ninka kaashiyerka oo ahaa nin fudud ayaa durbadiiba kaga hormaray bastoolada halkii ayaana lagu qabtay warqadii $1,000,000 Michael Fowler wuxuu warqad ku sawiray $1 milyan wuxuuna tagay mid kamid ah dukaamada Walmart wuxuuna ka dalbaday alaab qiimaheedu gaarayo $460 kadibna warqadii ayuu u dhiibay isagoo sugaya baaqiga in loo soo celiyo qoladii ayaaba durbadii fahantay isla markaana waxay si hoos u waceen booliska halkii ayaa lagu qabtay asigana fadlan hadii uu fiidiyogan ku cajibiyay like gare hana iloobin inaad rukumato kanaalka adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ka shadayna gambaleelka waxaad si toos ah u socon doontaa barnaamijyo xiiso leh insha Allah